fawaa'idka waxa kamida iyo miisaanka ama miisaanka ay ka taagan tahay shariicada waa sababaha lagu galayo jannada ninbaa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah min xadiidi abi ayuub alansaari ninkani nabigu su-aal weydiiyo wuxuu yihi akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna faqaala alqawmu maa lahu anigu waxaan ku weydiiyey buu ihi camal jannaduuni geliya asxaabta jannada u daray ridwaan ullaahi calayhim innagana waa inay inoo darnaataynu doonnaa lacag iyo adduunye iyo arrimaha iyo shaqo wanaagsan iyo waxaa mu weydiisan ninka reer miyiga siduu soo socdo buu nabiga yidhi janno maxay gelinaya laanna wuxuu ogayay tan inaan lagu waarayna maalmo yar tahaye xaasilkuu jannadaya markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam asxaabtuna waxay war maxaa dhacay waa ninka sidaan u degdegaya muxuu yahay markaa nabigu waxau yihi arbun maa lahu muraad buu leeya daaye nabigu usoo gaabiyo kuma cuslaynin oo uma falsafadaynin luqad uu fahmi karo koobanna ayuu kula hadlo usuushii iyo akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa iyo iimaankiya tacbudu allaha laa tushrikuu bihi shaya watuqiimu الsalaa watu'ti الzakaa watasilu الraxim ilaahay baad caabudaysaa keligii salaadaad oog sakadaad bixin qaraabadana xidhiiri buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam watasilu raxim raximkana xidhiiri oo hagoyn dhaqanka iyo diinta wanaagsana samxadaada saas min fawaa'idi dee waxaad jannada ku helaysa wax weyn wey ilaahay xaqiisii baa lagu xidhiiri iyo arkaano islaamki saaad ka arki karayso macnaha qofku marka uu ka run sheegayo arkaanta islaamka iyo iimaanka ayuu arrinkana xaqiijinaya fawaa'ideeda waxaa ka mid ah dadka ehelkoo la xidhiidhiyo oo uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa arsaaqad badan iyo cimri badan man axaba an yubsatahu lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fii aharih falyasil raximah qofka doonaya in arsaaqada loo badiyo cimrigana loo dheereeyo ha xidhiidhiya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa marka waxa ay aimada qaarkood leeyihiin miyaanay iska hor imanayn xadiidkan tilmaamaya in cimrigii iyo arsaaqadii la badinayo o la dheeraynayo iyo aayaddii ilaahay uhi fii suurati nax faida jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka waktigoodu dadka yimaado saacad ma horumarayaan saacadna kama dib dhacaya waktigaa ilaahay u xadiday maya iskama hor imanayaan nusuusta dhan bay wada jeedaa macnaheeduna waxa wey cimrigaa laba ah cimri loox maxfuudka ku qoran iyo qeyb labaad oo malag uu hayo xogteeda oo la yidhi hebel haddii uu qaraabada xidhiiy hadduu samafalka badiyo cimriga dheer buu leeyay laguu sheeg haddii kalena ka gaaban saasuu malaa'igtu ogeysiis ku qabaan si kale haddii loo dhigana cimriga dheer iyo calafka dheer uu nabigu tilmaamaya waxa weeye calayhi salaatu wasalaam waa barakada oo cimrigaa loo barakaynaya oo wixii ka dayacayabaa ilaahay ka xifdiyaya ka ilaalinaya calafkiisa u cunayana waa loo barakaynayaao wax u tara oo anfaca oo u iimaansidaa buu noqonaya fawaa'idkaasaa laga helayaa dadka ehelka ah oo loo samafalay ilaahay naxariistiisaanay ka mid tahay subxaana dadkii kugu dhawaad kollayba u qasbanayd inuu haddana kuusii amrayo inuu kusii amrayo xikmadda ku jirtaa waxay tihi taraabud bayna alumma ummadda in laysku xidho ummaddu markastay kala daadato oo shaydaanki iyo dadka sharka wadaa ka faa'iidaystaanna ayaan daraa ku dhacaysa adduun iyo aakhiraba markastay ururaana xaqa iyo samaha ku ururaanna ilaahay wuu ka raali noqonaya subxaana sababaha ummaddu naxariista ay doonayso ay ku mutaysanayso wey dadku markay isu dabcaan ay isu naxaan waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu sii dhimanaya arraxima qaraabada buu lahaa siduu riwaayooyinka qaarkood ay ka ansixeen asalaata salaa sidii u lahaa ayuu taa kalena u dardaarmaya ilaahay waxa uu ku leeyahay xadiid alquds ana araxmaan khalaqtu raxima washaqaqtu laha isman min ismi anigu raxmaan baana raximkana magacaygan ka jeexay raxmadduna halkaasay ku iman raxmaddu ilaahay dadkiisa siinaya subxaanahu wa tacaala markay dadku isu naxariistaan ayaa ilaahayna u naxariisanaya habka xidhiidhinta dadku waa saddex ibnu xajar sida uu leeyahay raximahu llah saddex qaybood weeye muwaasil mukaafi iyo qaatic qof waxaa la yidhaahdaa mukaafi waa abaalgude dadka wax siiyo unbuu siiyaa qaraabada kii aan waxba siinina waxba ma siiyo
midna waxa weeye qaatic mid jarayba oo aan waxbaba dadka siinin haddii la doonayo haba la siiyo ka saddexaadna waxa weeye muwaasil waa mid wax xidhiidhinayo xidhiidhkii dhabtahaa leh kaa nabigaa sii fasiray calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi walakina alwaasila aladii idaa qatacat raximuhu wasalaha waasil lama idhaahda iyo xidhiidhiyo qofka isagu abaal gudow ee cidda wax siiso un siiya kaa waas xidhiidhiyo lama idhaah laakiin qofka qaraabada xidhiidhiyaa waxa weeye kuwa gooyey buu ka warhaya kan kale ila waa la kala ritaye kuwa gooyey buu ka warhaya waa siduu kusii fasiray mar kale nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo wuxuu leeyahy qaraabanahay dad xigtaa dadkaa xigtadaahi asiluhum wayaqtacuunani waan xidhiidhiyaa iyaguna way jaraan wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilay waan wanaajiyaa waan u samafalaa iyana way xumeeyaan wayajhaluuna calaya waaxlumu can waan ka dulqaataa iyaguna way igu gafaan oo way igu xadgudbaan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lain kaana kamaa taqulu fakaanamaa tusifuhum lmal walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim maa dumta calaa dalik haddii arrinku uu yahay sidaa aad sheegtay waxaad ka dhigan tahay dambas kulul ama raran inaad afka ugu gurayso un waxay subag maaha waa sun waxaad leefsiinaysaayo ilaahay xaggiisana malag buu kuu soo dirayaa kaaga hiiliya ayuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam adigu ha joojinin wey cuqubada ka imanaysa haddii la gooyo waxa uu leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay laba cuqubaba inay jiraan cuquba adduunyada iyo cuquba aakhirada ah laa yadkhulu ljannata qaatic jannada ma gelaya ilaahay qofka qaraabadii gooyaa cuqubada adduunyadana uu ka hadlo wuxu uhi maa min danbin axra an yucajila allahu lisaaxibihi alcuqubata fi dunya maca maa yadakhiru lahu fi laakhirati min albagi wa qatiicati raxim laba dembi ayaa ciqaabkii aakhirana meel yaalla cuqubada adduunyadana ay soo degdegtaa waa kibirka dadka lagu kibree la dulmiyo iyo qaraabo goysnimada nusuustu way fara badan yihin baabkaa ka warramaya siyaabaha loo xidhiidhinaya waxaa ka mid ah wixii aad dheer tahayba inaad ku kordhiso hadday tahay arrin hadday tahay awood u baahan yahi hadday tahay aqoon haddii ay tahay sadaqo iyo adduun wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka ehelkaa sadaqa la siinaya dheeraadkay leedahay asadaqatu cala lmiskiini sadaqa wa calaa di raximi hintaani sadaqatun wasila sadaqada miskiinkii la siiyey hal ajri bay leedahay tii kale la siiyey qaraabadana laba ajri qaraabo xidhiidhin iyo sadaqada kii laga helay weliba kas markaa cuqdadu ay ku yaro jirto ama yaro naxligu ku jiro ayay tahay si loo uga nafiso mushkiladda haysata in lagala warhayo adduunku waxbuu dabciyaay siyaabaha loo xidhiidhinaya qaraabadii waxaa ka mid ah in hanuunka loola gurmado hadiyada la siinaya waxaa ka weyn hanuunka in loola gurmado hadduu gaal iyo hadduu taarig iyo hadduu faasiq iyo od iska wadato dharginayso waxaa ka muhiimsan caqligiisa inaad kobciso halkaad caatifada ka kobcin lahayd inaad ruuxdiisa kobciso halkaad jasadkiisa ka kobcin lahayd inaad rabitaanka ruuxda ilaaliso shaksiyad nool uu noqdo taasi aada u muhiima nusuustaasayna faraysa ilahay baa nabiga wuxuu ku uhi wa andir cashiirataka alaqrabiin dadka kuu dhow u dig nebi maxamedow digniin baa laga hadlaya duunyo la isisiinaya lagama hadlayo wuu waday nebigu naftuu duldhigo ilaahay baa yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa heerkii ha dhaafinin intaad karaysa waad samayseen yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ehelkiina iyo naftiina naar ka badbaadiya waa siyaabaha qaraabada loo xidhiidhinaya wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga salaada far adiguna ku adkow marka waa siyaabaha loo xidhiidhinayo waa ka nabiguna ubadku markay 7 jir gaadhaan wiilal iyo gabdho mid kasta aadeene salaada fara hadday dhacdaba inuu qofkii diinta ilaahay ka go'o kugu diidu kugu gacan saydho qaraabo xidhiidhintu mar bay noqotaa isagoo laga beri noqdo saasuu ilaahay ku ammaanay awliyadiisa xumaanta kuma raacaan hadday dulmi wadaan hadday kibir wadaan hadday macsiyo wadaan way ka goostaan laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum